kulankan iyo muddo 2 maalmood ka socday magaalada Muqdisho isla mar ahaantana looga hadlayay sidii loo heli lahaa sharciga maalgashiga dalka ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo ay ka soo baxeen qodobo ku saabsan natiijooyinka kulankaasi waxa ka soo qayb galay madasha shirka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiinta rugta ganacsiga quburo culimo u duniya wakiilo ka kala socday qaybaha bulshada rayidka gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdi Cali Gabayre oo ugu horeynta goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadalka ahmiyadda ay leedahay in la helo sharci ogolaanaya maalgashiga dalka si loo abuuro ila dhaqaale waxaan rabaa ganacsiga Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa ganacsiga Soomaaliyeed waxay ku fiirsan tahay caalamka wadamo badan aan hadda ka wada shaqeynaa oo dhaqaale badan oo nooga jira waxaan rajaynayaa first in aan horta soo urursano oo aan halkan iskula soo noqono oo aan xoogeena mideyno oo ku tashano dalkeena inaan dib u maalgashano anagoo kambaniyo waaweyn isugu tagi doona si aan u buuxino booshinada banaan ee dalku u baahan yahay baarlamaankan waxaan kula talin lahaa waa taariikh dalka hadda gacantiina ku jira shuruucda idinkeeda agtaala waxaan rajaynaynaa inaad dalka u soo saartaan sharci anfacaya oo dalka iyo dadkaba wax tari doona mustaqbalna leh maxaan ku raadada dadkan aan wax u dhimi doonin una danayn doona dalkana u danayn doona ganacsatada u danayn doona waxa la ilaalinayna ma ahayn ganacsatada waa hantida Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed xoolaha ay leeyihiin ee dalka ku jira waa ganacsatada laftooda in laga ilaaliyo ah sida looga ilaalinayo dadka maalgashiga dibadaha uga imaanaya ganacsatada laftigeeda la rabaa in looga ilaaliyo inaysan ku xad gudbin dalka waxa aan marka maanta wada dhowrayno oo halkaan isugu nimid aqoon-yahanada iyo ururada bulshada iyo culimo diinka iyo haweenka iyo xilwaanada aan isugu keenno waxay ahayd inaan dalkan waxa yaala khayraadka yaal iyo hantida taal waxa iskale ummadda Soomaalida iskale waxa wax loo sameeyay waa ummadda Soomaalida waxa ka wakiila baa xildhibaanada ka wakiila xildhibaanada marka aan ka codsanaynaa maanta in hantidooda iyo dakhligooda dalka inaad u ilaalisaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga soo saaray kulanka ayaa waxa ka mid ah in la helo maxkamad gaar ah oo lagu kala dibqaadayo maalgashiyaasha ajaanibta ah iyo ganacsatada Soomaaliyeed haddii ay dhacdo in isafgarawa uu dhex maro si loo helo sharci la hiigsado qaar ka mid ah qubaradii iyo aqoon-yahanadii ka soo qayb gashay kulanka ayaa si isku mid ah uga hadlay baahida loo qabo in la helo maalgashiga dalka iyadoo loo eegayo sharciga iyo nidaamka u yaala dalka Soomaaliya طبعا Soomaaliya waxay kamid tahay dalalka taagta daran ee u baahan mataqaan inay ka soo kabsadaan dagaalo sukeeyo waqti badan ragaadiyay طبعا waxa ka jiro duruufo aad u tiro badan markii loo fiirsho adduunka 10 dal ugu hooseeya ay ku jirtaa GDP-ga halbeega dhaqaale ee adduunka lagu cabiro طبعا waxay u baahan tahay marka inay hesho si ay dib u kabato waxay u baahan tahay inay hesho directive foreign investment maalgelintaas oo u baahnaan doonto shuruuc lagu xakameeyo طبعا Soomaaliya dalalka la midka ah ee hadda adduunka ka jiro ama Rwanda ha noqdaano ama Iraq ha noqoto ama Afghanistan ha noqoto mataqana ee ka dhaceen mataqana dawladihii dhexe ee ka baxeen meesha markii ay dib u kabsanayeen waxay u baahnaadeen economic recovery and reconstruction taasoo dib u karsiinayso dadka inay nolol helaan shaqo abuuris ay helaan dhaqaalaha dalka iyo khayraadka dalka uu leeyahay dib mataqaana ay umada ay u yeelato kartiga kula soo baxdo waxa jira gaab dabcan dhacayo markii dagaal dhaco gaabkaas waxa kamid ah dadkii shaqaalaha oo skill workforce loo baahnay inuu meesha ka baxo qayb ka noqonay. It is also the responsibility of the Chamber of Commerce in Somalia to provide leadership and provide the way and let foreign investors and other investors know how to come and invest in this country. So it should clearly state what the policy is, what the rules are, what the regulations are, so as to, foreign investors can have a clear way and guidelines of knowing how to come and invest in this country. And of course, it is all for the good of the Somali country, its people and also its neighbors. So really it plays a very central role. qorshayaasha maalgashiga ayaa la aaminsan yahay inay qayb weyn ka qaadan karaan horumarka dhaqaale ee dalka Soomaaliya iyadoo dhanka kalena ay fursad shaqo abuuris u noqonayso Soomaalida waxaana baarlamaanka Soomaaliya looga fadhiyaa ugu dambeyntii in go'aan uu ka qaato sharciga ganacsiga iyo maalgashiga dalka. Ali Cabdulqaadir Cali telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.